انت حنون واي باني مشاغاي بس imikana maanta laga bilaabo aniga wax laygama arki maayo ma fahanteen like murugo iyo waxaasno ana hal mar baan ka maarma qof bini aadana hadda aragtid oo jeclaatid oo daacad u ahaatid oo qofkaas khiyaaniyo bilaab ku aragtid ana hal mar baan ka maarma ma fahanteen aniga xanuun maanta iguma horeeyo ma fahanteen xanuun iyo khiyaano maanta iguma horeeyo waxaan u soo bartay guys xanuun iyo khiyaano da aragtid ma u soo dhashay aniga waa u dhashay ma fahanteen waxba uma arko like wax caadi ah u arkaa laakiin marmar maskaxdayda gacanta ma qaadanayso maskaxdayda qaadan weysay wax kastaan sameeyay hadduu qaadan kari waayo ku fikiray waan dul qaadan kari waaye waa arkay khasahaan markaan sii daawado oo naagta waxay isku soo dareen inuu jirkiisii u sawiro u diray iyadana u soo dirtay oo kale naasahay u qurux badan yahay qurux waaye maxaas waaye waxaas oo dhan indhahay ku soo arkay oo ka soo dubtay snapkeeni soo gelina faanteen so waxaasoo dhan marka arkay wallaahi alcadiim like noloshii shalay tore igu soo dhacday iyo maanta ta igu soo dhacday isla meeshii la taagay ma fahantay meelna kagama dhaqaaqin inuu ilaahay baa meeshan ii qoray mar kastaba inaan meeshan ku qaato mar kastaba meesha inaan ku qaato aniga ilaahay ii qoray ma fahantay iminkana waxba uma arko awooddaasna waa leeyahay oo ku qaadanayo oo ku xamili karo oo inaan waxba u arkin oo noloshayda hore ilaa u sii soconayso laakiin bani ma sheeg waan daalay runtii khiyaanan ka daalay alxamdulillah maanta inaan uurku yeelan oo ilmo ku qaadin ilaahay baa maad iskale ma fahantay waan ku faraxsanahay runtii laakiin nin dambe ma aaminayo qof dambe ma aamina kii hore kala iska meelo wax kasta ka meelo nolol sameyso xubiye dadkoo dhan ila yaaban shalay baasaa lagu galay saaha sameyn in Soomaali waji male waxaasoo dhan ka diiday no sida maanta Mareyka loo socdo Sweden loo aaday unba ada u yeelin lahaa sa aniga lay socdo Soomaaliya loo aadi lahaa ma fahanteen nasiibkayga sidana ani gacantayda isku sameeyay gacantaydan dambiga isku galiyay gacantaydan badan jiri la gala gacantayda dalaqda iraada fahanteen daahir cali sow wuxuu i dhahay ninkaagi Sweden u turaya Soomaaliya keenaya lagu naraaxaysanay waxaasoo dhan rumumuda inta soo fadhiisan keena
laakiin runbuu sameeyo ninkii oo ilaa nin baaba iska wato meel uu aad ka iraado meel uu bax ka iraado buska aada ilaan aanu nin ma qabin ilaan anigu mar waxa is iraada ma ogtiin aniga marxuum baa qabtaa marka iga tiraadin oo ii soo qortiin ninkaagi marxuum waa xubbi intaan saa u fiiri ayaan dhaha aniga xabaalaha ma noqday oo dadka dhinto lagu aaso waxaas marka ii soo qoraysid iga daaya anigii baa yaabo waxa iraad xabaalihii dadka marxuuminta lagu aasay ma noqday dadkana ilaa marxuum baa qabtay maxay ya wax kasta sababtiisa iska daayay waan iska dhaafay life ina soo gala iska dhaafay waxa ay guriga dhaqo waan is asturay anu waxa ahaa naag iska sidana ahaa laakiin sababtiisa isku asturay waan isku bedilay xubbidii hore lagu garanay waan iska bedilay gabar fiican oo nugu u noqon lahaa infaad jacayl siibaa lahaa hadduu saakeeno aniguna saasaan keenay daasi sax waqti si iyo maxay si iyo intuu kugu dul kaadinay sug iyo kaadidii way dhamaatay xaarkiisii sug iyo balaayadaas anu ma karay maxaateen anigu ma karay ku fiicnay dhahaa markaas waan siiyay uu ku garan waayay qofka kubadda waa loo dhibaa hadduu ku ciyaari garan waayna waa laga qaataa saaxiib mid ku ciyaaraya loo geeyaa maxaa ka khaldan kubadda waa lagu dhibaya waa lagu tijaabinaa waa ku ciyaaraysa hadaas maanta lisa u wareegaysid intaan kaa qaadan ku kala ogeynaya taasay kuleeda